kooxo hubeysan oo aan la garanayn halka ay ka yimaadeen ayaa barqanimadii maanta waxa ay weerar ay ku qaadeen gaari uu saarnaa xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliya. xildhibaanka ayaa la sheegay in halkaasi uu ku dhintay iyo sidoo kale waxa dhaawac uu soo gaaray mid kale oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. dad goobjoogayaal ayaa waxa ay Somsa TV u xaqiijiyeen in dhimashada xildhibaanka iyo dhaawaca xildhibaanka kasoo ay jiraan dad kale oo waxyeelo ay ka soo goobta oo weerarka uu ka dhacay oo u dhaweyd xarunta bacalaha iyo sidoo kale isgoyska ceelgaabta ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. xildhibaanka geeriyooday ayaa waxaa lagu magacaabayay maxamuud xayd waxaana uu kamid ah xildhibaanada baarlamaanka ee Soomaaliya. sidoo kale xildhibaanka kale ee dhaawacmay ayaa loo qaaday mid kamid ah isbitaalada ku yaala caasimadda Soomaaliya Muqdisho. weerarka kadib ayaa waxaa warbaahinta dhinaca kale la hadlay xarakada al-shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi maanta lagu qaaday laba kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo mid kamid ah markaasi uu dhintay. afayeenka dhanka howlgalada ee xarakada al-shabaab Abu Muscab oo la hadlay wakaalada wararka ee AFP ayaa waxa uu sheegay in ay sii wadi doonaan beegsiga ay ku hayaan xildhibaanada baarlamaanka ee Soomaaliya. waxaana uu sheegay in dhacdadii maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ee ay ku beegsadeen xildhibaanadaasi in ay markaasi ay soo abaabuleen oo mas'uuliyadda ugu ballaaran ay lahaayeen ciidamada xarakada al-shabaab. si kastaba ha noqotay dhawaan ayay ahayd markii mas'uuliyiin ka tirsan xarakada al-shabaab ay shaacay ka qaadeen in ay ballaarin doonaan qorshahooda dagaal ee markaasi ay kula jiraan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo cid walba oo markaasi taageero siinaysa dowladda Soomaaliya. ilaa hadda ma jirto wax waraa oo ka soo baxay dhinaca maamulka degmada Xamarweyne iyo mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya ee ku aadan qaabka uu falkaasi u dhacay iyo haddii ay jiraan dad markaasi rasmi ah oo dowladdu ay u soo qabatay. Cabdinaasir Socdaal, Somsa TV, Muqdisho.